subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmihiisa ka kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah ciidamada kumaandooska Soomaaliya oo burburiyay gaari al-shabaab ay ka buuxiyeen walxaha qarxa iyo saldhig al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka Jubbada Hoose hadalhayn badan iyo isweydiin ka taagan sababta in ka badan 7,000 oo arday oo reer Banaadir ay ugu dhaceen imtixaanka shahaadiga xilli madaxweynihii hore ee Galmudug oo ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo arrintaasi xaaladda deegaanadii dagaal beeleedyadu ka dhaceen ee gobolka Galguduud oo saaka degan dhaca ay dililka ay geysanayaan burcadda hubaysan oo muddooyinkan joogto ka noqday magaalada Muqdisho taliyaha xasilinta gobolka Gedo oo sheegay inaan gobolkaas laga soo saari doonin ciidamada dawladdu ay halkaasi geysay waa subaxnimo isniina taariikhdu waxay ku beegan tahay 7 bisha 9 sanadka 2020 warkaas oo dhan saaka waxaa aqrinaya Cabdullaahi Maxamed Cali waxaana warka soo saaray Axmed Maxamed Ibraahim وماسنتها علي سحيفة بسم الله الرحمن الرحيم dhegeystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan ciidamada kumaandoosta Soomaaliya ayaa la sheegay in ay burburiyeen gaari al-shabaab ay ka soo buuxiyeen walxaha qaraxa iyo saldhigyo ay ku lahaayeen qaar ka mid ah deegaanada gobolka Jubbada Hoose ciidanka kumaandooska ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay inay ka war heleen gaari nooca loo yaqaan Suzukaha oo midabkiisu yahay madow oo al-shabaab ay ka soo buuxiyeen walxaha qarxa isla markaana ay doonayeen inay la beegsadaan fariisimaha ay ciidamada ku leeyihiin deegaanka Janna Cabdalle ee ku yaala duleedka magaalada Kismaayo qiyaastiina 60 kiiloomitir u jira magaaladaasi dhinaca kale waxa ay ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa danab ay sheegeen in ay markaasi burburiyeen waxyaabaha gaarigaasi ay ka soo buuxiyeen dagaalamayaasha kooxda al-shabaab oo ay sheegeen inay doonayeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ahi sidoo kale ciidamada danab ayaa dhanka kale waxa ay sheegeen in deegaanka Janna Cabdalle ay ku burburiyeen gaari nooca loo yaqaan Homeyda oo dagaalamayaasha kooxda al-shabaab ay doonayeen inay soo geliyaan gudaha magaalada Kismaayo kuwaas oo ay sheegeen inay ku dhibaateyn rabeen dadka shacabka iyo sidoo kale fariisimaha ay ciidamada Jubbaland ay kaga sugan yihiin magaalada Kismaayo wararkii ugu dambeeyay inuu ku helino deegaanka Janna Cabdalle oo ay dhawaan la wareegeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland halkaas oo maalin ka hor ay fariisimo cusub ay ka sameysteen deegaankaasi ayaa waxa ay warar ku tibaaxayaan in halkaasi ay ciidamadu ka wadaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay ku doonayaan inay al-shabaab kaga saaraan deegaanadaasi hoostaga deegaanka Janna Cabdalle oo istiraatiiji muhiim u ahayd dagaalamayaasha kooxda al-shabaab oo inta badan gawaarida isaga kala goosha gobolada dalka ay lacaga uga qaadi jireen wararka kale ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in ciidamada ay sidoo kale fureen wadooyin ay sheegeen in dagaalamayaasha kooxda al-shabaab ay miinooyin ku aaseen kuwaas oo ay sheegeen inay doonayeen inay ku dhibaateeyaan dadka wadadaasi isticmaalaya muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhaqdhaqaaqyo kala duwan waxa ay ka wadeen deegaanka Janna Cabdalle oo qiyaastii 60 kiiloomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo waxaana warar ay helayso idaacadda kulmiye ay xilligan sheegayaan in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland oo ahay tiradooda ku dhawaad 200 oo askar lagu kordhiyay 300 oo askar oo isugu jirta ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa qaybta 43 iyo ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka Jubbaland kuwaas oo la sheegay in lagu doonayo in lagu xoojiyo ciidamada si ay markaasi u babacdhigaan dagaal ay sheegeen in al-shabaab ay u qorsheynayaan inay kula wareegaan deegaankaasi Janna Cabdalle Janna Cabdalle ayaa inta badan waxa ay markaasi fariisin muhiim u ahayd dagaalamayaasha kooxda al-shabaab oo inta badan markaa ay u ahayd marin muhiim ahi oo gawaaridu ay isaga kala gooshaan laakiin hase yeeshee waxaa iminka ku sugan muddo 3 maalmood ahi ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland shalay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay natiijadii imtixaanka dugsiga sare gaar ahaan fasalka 12aad wasaaraddu waxay sheegtay in imtixaanka ay ku dhaceen 8550 arday iyadoona arinta la yaabka natiijadaas kadib markii ay dhaceen arday badan oo imtixaanaadka ku gashay gudaha magaalada Muqdisho madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guulad ayaa ka mid ah aqoon-yahanada ka falceliyay natiijada ay shaacisay wasaaradda waxbarashada haddaba qoraal kooban uu soo saaray ayuu wuxuu ku sheegay sida tan
waxa ay soo gaarayaa walaaca iyo tabashada ay dad badan ay ka qabaan natiijadii imtixaanaadkii fasalka 12aad oo ay faafisay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaana shaki ku jirin in shaqo walba oo la qabto ay leedahay dhaliilo iyo bogaadin intaba sida ay dhammaan gobollada Soomaalida isku mid yihiin oo aan u jecelahay inay xaqooda u helanaya sidoo kale u jecelahay in arday walbana uu xaqiisa helo mugdi badan ayaa iiga muuqda natiijadan waxaana sababaha ka mid ah sida ka muuqata jaantuska natiijada imtixaanaadka waxaa guud ahaan u fariistay 32727 arday waxaana haray dhacay 8550 arday taasoo ka dhigan 25.35% celcelis ahaan tani waa arin argagax leh muujinaysana fashil muuqda oo ku yimid nidaamka waxbarashada ee dalka marka indha aqooneed lagu eego dhanka kale jaantuska wuxuu ina tusinayaa in ardayda gobolka Banaadir ka dhacday ay yihiin 7873 arday taasoo ka dhigan in 90% ardayda dhacday ay ahaayeen ardayda hal gobol imtixaanaadka u gashay waana arin kale oo iga maajisay dad badanna shaki ku abuurtay intaas iyo in ka badan oo la wada fahmi karo in aanay mangal ahayn ayaa natiijada soo baxday ka muuqatay ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ardayda badan ee ka dhacday gobolka Banaadir maruu ka hadlayay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya baasku gudbiddu meesha u badan tahay waa 67 ardayda xoogooda 50 intii baastay ee ka badan 55 meelahaas aan qiyaasaya waxay ku jiraan nawaaxiga 60 ilaa 70 macnaha meel dhexe oo aan aqoon weyn ahayn dhacna aan ahayn ayaa dadkii dhooban yahay waxaan rabnaa meeshaas inaan u leexino la iskugu tago dhinaca baaska culus ah marka gobolka Banaadir oo ardada imtixaanka gashay markii 50 ay ka imaanayso gobolka Banaadir haddii ay meesha ku jiraan meeshaas in aad looga nuuxsado waa adagta marka xil zaa'ida ayaa gobolka Banaadir wuxuu ka saaran yahay in wadanka uu u riixo dhinaca baaska culus oo waxaan rajaynaynaa markii waxbarashadu si adkaato in baasidu ay timaado 70 ilaa 80 meesha in loo bato ayaa goolku yahay marka waxbarashada tayadeeda aad loo adkeeyo gobolka Banaadir mas'uuliyad gaar ah ayaa ka saaran inay meeshaas ay muxuu ahaa nagu hagaan Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa gabagabadii waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay dowladda federaalk ee Soomaaliya in aysan fududeysan mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo walaaca waalidiinta haysta si gaar ah waxaan u soo jeedinayaa in guddi heer qaran loo saaro arintan oo xaqiijin ku samaysa hufnaanta habkii loo qaaday imtixaankan iyo habkii loo saxay intaba maalmihii ugu dambeeyey waxaa qaar ka mid ah deegaano hoostaga gobolka Galgaduud ka dhacayay dagaal beeleedyo iyadoona wararkii ugu dambeeyey ee deegaanadaasi aan ka helayno ay sheegayaan in xaalad deganaan ah la dareemayo waxaa warkan magaalada Cadaado inooga soo diray wariyaheena Xasan Axmed Maxamed waxaa xalay saqdhaxa soo gara dagaalka u dhaxeeya maleeshiyada dadka deegaanka kaasoo tan iyo shalay gelinka dambe ka socday gudaha deegaanka Xanbuure ee gobolka Galgaduud dagaalka u dhaxeeya dadka deegaanka ayaa si iskiisa u istaagay kadib waqtiyo badan oo dagaalamayeen waxaa la soo sheegayaa in wali la isku horfadhiyo gudaha deegaanka Xanbuure ee gobolka Galgaduud dagaalka u dhaxeeya maleeshiyada wadawadaga ayaa waxa ka dhashay khasaare isku jira dhimasho dhaawac kuwaas oo soo gaaray dhammaan dhinacyada dagaalamaya inta la xaqiijiyay 2 qof ayaa la sheegay in geeriyoodan ayadoo dhaawac intaas ka badan uu ka dhashay kuwaas oo loo kala qaaday xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalooyinka Dhuusamreeb iyo Cadaado dadka deegaanka ayaa sheegay wali xiisad sababi karta dagaal dhex mara maleeshiyadka deegaanka ay ka taagan tahay gudaha deegaankaasi Xanbuure iyo goobo kale u dhow magaaladaasi gurmadii xoogan oo laba dhinac ah ay dadka deegaanka sheegeen si xal ugu socdaan gudaha deegaankaasi taas oo xoojinaysa xiisada maleeshiyadka ee gudaha deegaanka Xanbuure ee gobolka Galgaduud waxaa baraka xoogan la sheegay in saaka ay sameynayaan dadkii shacabka ay ku noolaa gudaha deegaanka Xanbuure ee lagu kor dagaalamay kadib markii u dulqaadan waayeen hubka noocyadiisa kala duwan ee isticmaalayaan maleeshiyadka dagaalamaya isla markaasna keentay in cabsi la xiriirta in waxyeello ay ka soo gaarto ay ka muujiyeen dagaalka halkaasi ka dhacay qoysaskii ka barakacay gudaha deegaanka Xanbuure ayaa la sheegay in hadda ay ku sugan yihiin meel aan sidaas uga fogeen deegaanka lagu dagaalamayo ee Xanbuure xiisada ka jirta deegaanka Xanbuure ayaa laga cabsi qabaa inay ku sii fido deegaano badan oo ay wadaagaan qabaylka dagaalamaya isla markaasna dhibaato aan wax qabad lahayn ay ka dhalato loona baahan yahay in la kala qaado maleeshiyadka isku horfadhiya gudaha deegaanka Xanbuure ee gobolka Galgaduud
dhinaca kale ilo xoogaa leh waxay reediyo kulmiye u sheegeen in galmudug ay maanta qorsheynayso in ciidamo halkaasi loo diro si ay u kala qaadaan maleeshiyaadka dadka deegaanka ah ee isku horfadhiya deegaanka xanbuure ee gobolka galgaduud waxaana wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ay saraakiisha ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ee ka howlgal galmudug ay ka dalbatay in ciidamo isugu jira booliis iyo nabadsugid la geeyo deegaanka laisku horfadhiyo ee xanbuure islamarkaasna uu ka dhaca dagaalka xalay xilli dambe soo gaaray ilaa hadda ma jirto cid ka tirsan galmudug waxgaradka dhinacyada dagaalamaya oo ku baxday dagaalka xanbuure si loo kala qaado maleeshiyaadka xalna looga gaaro dhibaato iyo colaada ka jirta qaybo ka mid a deegaanada ay wadaagaan dadka dagaalamaya weeraro la xiriiray xiisadan ayaa habeenka hor ka dhaca qaybo badan oo ka mid a deegaanada galmudug kuwa oo galaaftay nolosha 2 ruux ayna ku dhaawacmeen ilaa 6 ruux kuwa aan waxba galabsan waxaana meesha ka maqan kaalintii maamulka galmudug ee xalfilida arrinta ka jirta qaybo badan oo ka mid a galmudug xasan aad ayuu mahadsan yahay magaalada muqdisho haddii aan kusoo laabanana maalmihii ugu dambeeyey waxaa kusoo kordhayey falalka amni darro oo qayb ay ka yihiin dhaca iyo dilka loo geysanayo dadka shacabka ah farxaan maxamed xuseen muddooyinkii dambe waxaa magaalada muqdisho ku soo batay dililka iyo dhaca ay geysanayaan kooxaha burcadda kuwaasi oo dhammaan qallaasa amni ka abuuray degmooyinka gobolka banaadir waxaana arrintaasi ay welwel ku abuurtay shacabka ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir waxa ay soo taraya sidoo kale baaqyada ay jeedinayaan shacabkaasi maamulka gobolka banaadir oo arrintaasi aan wax ka weydiinay ayaa waxay sheegeen in ciidamada amniga ay magaalada muqdisho howlgallo ka wadaan islamarkaana howlgalladaasi ay mararka qaar ku soo qabtaan kooxa burcadda iyo sidoo kale kooxo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab afhayeenka gobolka banaadir saalax xasan oo la hadlay raadiyo kulmiye ayaa waxa uu sheegay in laamaha amniga qaybahooda kala duwan ay xaafadaha magaalada muqdisho ay ka wadaan baaritaano ku aadan sugidda amniga iyo sidii looga hortegi lahaa dadka markaasi dhibaatooyin u geysanayo shacabka ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir dadka muqdisho cid way u maqan yihiin mas-uuliyiin oo xil iska saaray inay dadka muqdisho u damqadaan oo u maqan ayaa jirta shacabkeenana aan u taagannahay inaan u shaqeyno oo had iyo jeerna wixii dhibaato ah oo shacabkeena soo gaartana ay tahay mid annagiina soo gaartay waxa annagaan u taagannahayna ay tahay mas-uuliyadda dadkii u damqan lahaa wax u qaban lahaa wixii soo gaaray shacabka ka daba tegi lahaa inaan annaga nahay laamaha ammaanka iyagana sidoo kale waxay u taagan yihiin waxay tahay har iyo habeen bay u taagan yihiin habeenadii sakda dhexe dadka shaqaynaya howlgallada ku jira wadooyinkii istaagsan laamaha ammaanka qaybahooda kala gediso waa kuwa had iyo jeerba u taagan inay roondooyin sameeyaan habeenadii u dambeysay ee magaalada muqdishona waxa ka socda wadooyinkeedii xaafadaheeda waxay tahay roondooyinka ay sameynayaan ciidamada booliska qaybahooda kala gedisan oo kaashanaya laamihii kale ee amniga marka waa in xaqiiqda iyo dhabta ee loo laabtaa haddii ay jirto in rag ku labisan darees ciidan ay dhac geysanayaan runtii kama mid aha ciidamada soomaaliyeed ee sharafta mudan ee ammaanta mudan ee u taagan inay shacabkoodii ay badbaadiyaan ee shacabkoodii